soo degitaankii nebi aadan calayhi salaam. aadan aad ayuu u ooyey kadibna waxa uu sogotiyey kulli intii jannada ku jirtay oo idil ilaa heer ay geedihii la ooyeen intaan geedka cuudka ee la shitaanin ka ahayn. markaasaa geedka cuudka waxaa la weydiiyey adiga ooyi maysid miyaa? wuxuu yidhi macaase ayaan u ooyaa. markaasaa loo dhawaaqay geedkii oo lagu yidhi sidaad amarkeenna u weynaysa ayaan kuu weynaynay laakiin waxaan kuu hibaynay gubidda. geedka cuudku wuxuu yidhi tanna maxay ahayd? waxaa lagu yidhi adigu waad weynaysay sidaasoo kale ayaguna kuu weynaynayaan laakiin qalbigaagu uma guban midkaan jeclayn waa aadane sidaas daraaddeed ayay ku gubayaan. aadan markuu albaabka jannada yimid ayuu mid labadiisa lugood ka mid ah albaabkaas ka soo saaray wuxuuna yidhi bismillaahi arraxmaani arraxiim. markaasuu jibriil wuxuu ku yidhi waxaad ku hadashay erey weyn markaa waxoogaa taagnow iyadoo ay dhici karto inaan midkaa loo jeedin oo ku tuuro. markaasaa jibriil loo dhawaaqay oo lagu yidhi iska daa ha baxee. markaasuu jibriil yidhi ilaahow waxau kuugu yeedhay arraxmaan oo ah midka naxariista badan ee markaa u naxariiso. markaasuu eebba yidhi haddaan u naxariisto tahay naxariistayda waxba ka dhimi mayso hadduu tegana waxba lagu ceebayn maayo markaa ha iska tegay iska daa. kadibna ha soo laabto isagay la socdaan malaayiin dhashiisa ka mid ah oo caasiyiina si uu u arko deeqdeena aan ubadkiisa siinayno uuna u ogaado waasicnimada raxmadeenna. markaasuu aadan waxa uu ku soo degay buur la yidhaahdo buuth oo ku taala dalka hindiya. aadan waxa uu la soo degay caraftii jannada caraftaasoo ka dhigtay hindiya geedaheeda kuwa udgoon kuwaasoo intii ku taalayba ay carafi ka buuxsantay. xaawana waxay ku soo degtay jiddah. waxaa kaloo la wariyey inay ku soo degtay carafo. ibliis waxa uu ku soo degay dhulka la yidhaahdo al ubullah ahna dhul u dhow magaalada basra ee dalka ciraaq. waxaa kaloo isna la wariyaa in lagu dejiyey jiddah dhiigga caadada ama xaydka haweenka. cabdilaahi binu cabbaas waxaa laga wariyey inuu ilaahay subxaana wa tacaala yidhi aadanow maxaa kugu xambaaray ama kugu kalifay waxaad fashay? aadan wuxuu yidhi waxaa ii qurxisay xaawa. markaasuu ilaahay subxaana wa tacaala ku yidhi markaas anigu waxaan ugu abaalmarinayaa inayna xaamilo noqon iyadoo ku dhibtoota mooye waxaana dhiig ka keenayaa bishiiba 2 goor. waxaa kaloo la wariyey in sababta xaydka loogu rida ay tahay ciqaab looga abaalmarinayay inay geedka dhiig ka keentay iyo weliba ciqaab inay abeesadii lugaha ka jajabisay. waxaana dhici karta inay intaasoo idilba sabab u ahaayeen. alxaakim iyo ibnu almunthir waxay isna saxiixa uga wariyeen ibnu cabbaas inuu yidhi bilowgii xaydku wuxuu xaawo ku dhacay kadib markay jannada ka soo degatay oo ay dhulka timiday. ibnu mascuud waxa uu yidhi ragga iyo haweenka reer bani israa'iil way wada tukan jireen markaasay haweenku ragga jidhkooda u muujin jireen markaasuu ilaahay dhiigga xaydka korkooda yeelay uuna masaajidiyada ka reebay. albukhaarina wuxuu yidhi nebiga sallallahu calayhi wasallam waxa uu inoo sheegay inuu dhiigga xaydka uu yahay amar uu ilaahay dul dhigay gabdhaha aadan korkooda. dhiigga lagu riday gabdhaha reer bani israa'iil wuxuu hayay muddo gaaban taasoo abaalmarin ama ciqaab looga dhigay ee ma aha inay iyagu ugu horreeyeen gabdha uu xayd ku dhaco. saasuuna xaydkii xaawo ku noqday dhiiggii ugu horreeyey ku dhibca dhulka oohintii aadan uu ooyey maalinkii jannada uu ka soo tegayey. cabdilaahi binu mascuud allah ka raali noqday waxa uu yidhi haddii ilmada dadka arliga degan oo idin lasku keeno oo la barbar dhigo ilmadii uu aadan ooyey waxaa badan doontay ilmadii oo aadan ooyey markaa tiiraanya uu ka calool xun yahay kasoo tegidda jannada uu ka soo tegey iyo inuu geedkii laga reebay cunay. sababtuna waxay ahayd cabsi uu cabsaday iyo xishood uu xishooday iyo kaamilnimo ay qalbigiisa ku sugan tahay weynaanta ilaahay. aadan waxa uu ooyey 100 sano isagoo aan madaxiisa marna samada kor ugu qaadin xishood uu rabbigiis ka xishoonayo daraaddeed. aadan wuxuu ahaa mid markuu arko malaa'igta samada kor u sii galaysa iyo kuwa ka soo deganayaba hilowga uu waddankiisa u qabo uu kordho. waddankaasoo ahaa beelaha kala duwan ee jannada kuwaasoo isaga loo baneeyey inuu dhexdeeda ku jiro. aadan waxa uu indhihiisa ku arki jiray malaa'igta inkastoo aynan caddayn inuu suuraddooda asligaa ku arki jiray iyo in kale. waxaana la sheegay inay tahay arrin nebi maxamed sallallahu calayhi wasallam gooni loo siiyey oo isaga khaas u ah inuu arko malakul jibriil suuraddiisa asliga ah taasoo uu 2 goor ku arkay. markaa midkaaga caqliga fayowlahow u fiirso siduu aadan aabbaha ugu fadhiistay sariirta boqortooyada oo sida aan soo sheegnay ka samaysan dahab iyo yaaquud taasoo 700 lugood leh oo aadan karaamiin loogu fadhiisiyey oo markaas gacanta u taagay luqmad laga reebay oo markaas jannada looga soo saaray. markaa ubidkiisow iska jira ciribxumada macaasida maxaa yeelay qofkay haleesho hoos ayay u dhigtaa martabada uu lahaana way ka dejisaa. koofaarida aadan ee abaa muxamed ومقعوه إلهي آدم نقوم مقعابي أبا محمد أو محمد أبيس وحال وري إن مركي إلهي سبحانه وتعالى وأبور آدم وكي إلهامي كنهر إنتان أحد ملائكتك مده وسن كوفارتا سجيرين إنه يراهدو ربك يوم حد يقول كوفارتا أبا محمد أو أبيه محمد إلهي سبحانه وتعالى وحوري آدم ومدحا كر أسوقات مركاسو آدم مدحي سكر أسوقاتي مركاسو وحكو أركي نور كالنبي محمد عليه الصلاة والسلام أو سورة دي سلام مركاسو آدم عليه السلام يري ربي يوم حوها نور كني مركاسو أبي سبحانه وتعالى يري كني
waa nuurka nebi dhashaada ka mid ah magaca malaa'igta samadu u taqaana uu yahay axmedun dadka arliga deganaa ay u yaqaanaan muxamedun hadduusan isaga ahaan lahayn kuma aanan abuurneen mana aanan abuurneen sami iyo arli midna ilaahay subxaanahu watacaala waxa uu waxyooday ciise wuxuuna ku yidhi aamin muxamed ummadaadana waxaad amartaa inay iyaguna rumeeyaan oo haddayna muxamed ahaan lahayn ma aanan abuurneen jannada iyo naarta midna markaan carshiga biyo korkooda ku abuuray ayuu nuxnuucsaday markaasaan waxaan korkiisa ku dhigay laa ilaaha ila allah muxamedun rasuulullah markaasuu xasilay oo uu degay xadiiskan waxaa saxiix ka dhigay alxaakim waxaana hubiyey asubki kuna sugay kitaabkiisa shaafici oo alsiqaami oo micnihiisu yahay bogsiinta kuwa buka xikmadda iyo naxariista ka soo dejinta aadan ee jannada bal arag naxariista iyo xikmadda faraha badan ee ku sugan in aadan jannada laga soo dejiyey oo arligan loo soo dejiyo ahna faa'iidooyinka soo dejintiisa ka dhashay oo hadduusan arligan u soo degi lahayn lama arkayn jihaadka kuwa mujtahidiinta ah ee cilmiga baarah oo barta oo bara iyo jihaadka caabidiinta ilaahay si dhab ah u caabuda iyadoo ay xikmaddu ahayd hubinta iyo helidda cilmiga kadibna camalka lagu dabaqo oo uu sidaas ku noqdo camal sugan hadduusan aadan soo degi lahayn samada kor uma tafeen codadka iyo neefdhowga kuwa toobadda keenay hoosna uma aysan qubateen dhibcaha ilmada kuwa dembiyada galay imaam alqardoobi wuxuu tafsiirkiisa ku yidhi kasoo saaridda ilaahay uu aadan jannada ka soo saaray ma aysan ahayn ciqaab lataga lagu ciqaabayo maxaa yeelay waxaaba jannada laga soo saaray oo dhulka loo soo dejiyey kadib markii isagu toobad keenay oo ilaahayna u dembi dhaafay oo uu dowbadiisa aqbalay waxaase loo soo dejiyey edbin la edbinaya iyo adkayn la adkaynaya mixnada iyo dhibaatada ku habsatay runtuna waxay tahay in soo dejinta adliga loo soo dejiyey ay ka mid tahay xikmadda ilaahay ee asaliga ah taasoo weligeed jirtay ahna inuu aadan ubadkiisa arligan ku faafiyo markaa cunidda xabaddaas midhaha geedka laga reebay ee uu cunay waxay sabab u noqotay in arliga loo soo dejo ilaahayna waa midka wuxuu doono fala ilaahay subxaana wa tacaala markuu towbadda aadan aqbalay wuxuu u waxyooday oo u caddeeyey una ilhaamiyey waxay naftiisu ku xasishay cabsidii aadan haysiyey kurbadiina ka dulqaaday wuxuuna eebbe ku yidhi aadanow haddaad ka soo degatay daarta dhowaashada ee ilaahay u dhow waana jannadee ha tiiraanyoon maxaa yeelay anigu waan kuu dhowahay waxa la iga baryana qofka iga barya waan siiyaa sidii dhowaanshaha aan jannada kuugu dhowaa wuxuu la mid yahay dhowaanshahaygaan arliga kuugu dhowahay waana maqlaa oo siiyaa kuwa i barya waxay iga baryaan hadday bixidda jannada lagaa bixiyey uu qalbigaagu ku jabay sida dhacdayba anigu waxaan ahaa agtaada iyo midka u dhow oo aan kabaa kuwa quluubtoodu aniga daraadday ay u jabeen oo waxaa qalbiga laga dhigay sida quraarad khafiif ah oo taag daran oo hadday jabto kala daadanaysaa sidaasoo kale ayuu qalbiguna u taag daran yahay eryidda ibliis markii ibliis samada laga soo eriyey kadib markuu muddo dheer adeegayey ibliis waxa uu yidhi ilaahayow miyii hadhay bar aanan ku sujuudin markaasuu eebbe subxaana wa tacaala yidhi u sujuud aadan markaasuu ibliis yidhi ma aniga adiga fadli yeelaysaa iga kor marinaysaa ilaahay subxaana wa tacaala wuxuu yidhi waxaan doono ayaan falaa laymana weydiinayo waxaa falo oo maxaad sidan u fashaa ma u samaysay layma odhanayo markaasuu ibliis diiday inuu sujuudo markaasaa la eriyey oo la nacdalay markiisaa loo eriyey ayuu camalkiisii oo idin waxa uu noqday habaaska la fadhiyo oo kale markaasuu eebbe waxa uu ku yidhi ka bax xaggeeda adigu waxaa tahay mid la fogeeyey korkaagana waxaa ah lacnad tan iyo maalinka xisaabtankee taas waxa weeye jannada ka bax oo samada lagama soo saarin waxaa laga reebay biicada oo ah markii nebi maxamed calayhi salaatu wasalaam la soo diray dabadeed isagoo lala dhacayo oo lagu rajmayo shihaab oo ah dab ololaya deeqaha aadan la siiyey war u fiirso oo isha qalbigaaga ku arag oo ku fikir arrinkan markay deeqda uu aadan calayhi salaam uu khalqiga intiisa kale sida malaa'igta uu dheer yahay ahna aqoonta iyo cilmiga kuna tilmaaman aayadda 11 ee suuratu albaqara oo micnaheedu uu yahay waxaanu barnay aadan magacyada kulligood jannadu ma aha daar dhexdeeda lagu shaqeeyo oo lagu daalo balse waa daar lagu nimcaysto oo lagu raaxaysto sidaas daraaddeed ayaa waxaa lagu yidhi aadanow u dego arliga jihaadka oo ah jihaadka nafta iyo shahawaadka nafta naftu waxay doonayso waxaad uga adkaataa shaqo badan oo adag oo dhib ah oo aad kula jihaadid waxaa hadalkaas ka cad inaysan adduunyadani intay doontaba ha dheeraatee ayna waxba ahayn marka la fiiriyo nimcooyinka aakhiro taasoo waaraysa iyadoo adduunka dhammaanayo wax dhammaanayana waxba ma ahan marka loo fiiriyo waxaa waaraya sawirnimada ibliis markuu ibliis korkiisa nacdal ha ahaatee xaasidnimadu waa aadan u qaba muujiyey wuxuu ku dadaalay inuu dhibaateeyo ilaa uu sabab u noqday kasoo saaridda jannada caalimka magaciisu yahay alyaafici wuxuu kitaabkiisa nafaxaatu al-azhaari ugu wariyey cali binu abi taalib inuu nebi maxamed calayhi salaatu wasalaam yidhi waxaa igu soo degay jibriil wuxuuna yidhi shay walba wuxuu leeyahay sayid oo ah hogaamiye ama madax basharkana waa dadkee sayidkoodu waa aadan dhasha aadan oo ah bili'aadanka oo idinle sayidkoodu waa adiga waxaana taageeraya xadiidka fatxu albaari bisharxi saxiix albukhaari
iyadoo Cumar bin Khadaab Abubakar waa sayidkeena wuxuuna xoreeyay sayidkeena oo Bilaal ah kaasoo uu iibsaday ama uu xoreeyay isagoo adoon ah sawirka Ibliis ma uusan garan in aadan haddii jannada laga soo saaro ay deeqiisu kaamil noqonayaan kadibna uu jannada ku noqonayo isagoo sidii hore uu ahaa ka kaamilsan Al-Qurtubi waxa uu yidhi laskuma khilaafsan inuu Ibliis caalim ahaa oo yaqaanay Ilaahay intuusan gaaloobin ka hor balse cilmiga ayaa laga siibay ama laga tirtiray markii uu gaaloobay saasuna Ibliis ku noqday axadkii ugu horreeyay gaal noqda ujeedada Ibliis ma ahayn inuu aadan jannada ka soo saaro wuxuu doonayay inuu hoos u soo rido martabada iyo darajada uu ku sugnaa uuna u fogaado sida isaga loo fogeeyay oo kale mana uusan gaarin muraadkiisii oo ma uusan haran dhimashada aadan wuxuu dhintay calayhi salaam isagoo 1000 sano jirsaday sida ku soo aroortay xadiiska Abu Hurayra iyo Ibn Abbas ay Nabi Muhammad sallallahu alayhi wasallam ka wariyeen waxa kale oo la yiri 1000 sano oo 70 dhiman wuxuuna ku dhintay oo la wariyay Makka al-Mukarrama maalin Jimcaha waxaana ku tugaday Malakul Jibriil oo imaam u ah malaa'igta iyo dhasha aadanba waxaana lagu duugay ama lagu aasay qabri ku yaala god ku yaala buur Jabal Qubays oo ah buurta uu hadda ku dul dhisan yahay guriga boqorka Sacuudiga ee Kaabada agteeda ka dhisan sidaas waxa sheegay Al-Ta'libi Ibn Abbasna waxa laga wariyay inuu yiri markuu aadan xashka dhameystay oo uu ku firaaqoobay oo uu ka soo jeestay wuxuu u soo laabtay Hindiya halkaas oo ku dhintay Thabit al-Banani waxa laga wariyay inuu yiri markuu aadan dhintay waxay u qaadeen god u dhex yaala Sarandiib oo ah god ku yaala barta lagu soo dejiyay wana buurta dalka Hindiya ku taala la yiraahdo Jabal al-Busa maalinkii aadan uu geeriyooday calayhi salaam waxa madoobaaday qoraxda iyo dayaxaba kuwaasoo madooba maalinkii oo dhan xaaw waxay aadan dabadii noolayd hal sano waxa kale oo la wariyay inay noolayd 3 maalmood ka bacdi dhimashadiisii waxaana lagu aasay dhinaciisa cuntada jinka markuu Nabi Maxamed calayhi salaatu wasalaam nakhla ku degay wuxuu Ilaahay xaqiisa u soo duway 7 nin oo jinniga nasiibiin ah oo carab ah jinni walba dalku degan yahay ayuu ka tirsan yahay afkooduna uu ku hadlaa markaas waxay weydiisteen inay cunadoodu tahay waxa bini'aadanka ka soo hara sidoo Al-Zarqani wariina waxay weydiisteen waxa u xalaashay waxa aaraanta ka ah markaas uu Nabigu ugu jawaabay cunadiinu waa laf kasta oo marka la cuno bisinka Ilaahay loo qabtay markay laftaasi gacantiina soo gasho waxa ka soo buuxsameeyay hilib ka fara badan hilibkii markii hore ku yaalay saalada xooluhuna waxay calaf waa cunne u tahay xoolihiina oo waxay u noqonaysaa xoolihiina dhir cagaaran xadiiskan wuxuu daliil u yahay in jinnigu wax cuno waxna cabo wuxuuna beeninayaa kuwa yiraahday inay jinnigu wax cunin waxna cabin oo lafta waxay hilib u noqonaysaa waa in run ahaantii la cuno hilibkaas Nabiga sallallahu alayhi wasallam wuxuu yiri shaydaanku wuxuu wax ku cunaa gacantiisa bidix wuxuuna wax ku cabaa gacantiisa bidix jinku carruur miyuu dhalaa jinnigu waa sida dadka oo kale waxay u qaybsan yihiin rag iyo haween waana iskuursadaan carruurna way dhalaan Ilaahay subxaanahu wa ta'aala wuxuu aayadda 27aad ee suurada A'raaf ku yiri shaydaanku waa uu idin jeedaa isaga qabiilkiisuba oo Abdullah ibn Abbas waa carruurtiisa idinkuna uma jeedaan oo ma arki kartaan cadow ku jeeda ama ku arkaya adiguna aadan u jeedin waa culis badan yahay oo dhib badan yahay qofku Ilaahay ka ilaaliyo mooyee anwaacda jinka Al-Zarqani wuxuu yiri Ibn Hibban iyo Al-Hakim waxay ka wariyeen Abi Tha'laba Al-Khushani inuu Nabiga sallallahu alayhi wasallam yiri jinnigu waa 3 nooc oo kala ah koow nooc baala leh oo hawada ku duula nooc labaad oo ah habeesooyin iyo nooc saddexaad oo dadka ku dega oo gala dhibaateeyana waaba iyadu Ilaahay subxaanahu wa ta'aala aayadda 64aad ee suuratul Isra ku yiri uga nixi oo ku cabsi codkaaga kuwa ayaga bani aadamka kamid ah oo aad awoodi oo Ibn Abbas yiri ugu yar caasiyada Ilaahay oo axad kasta oo dadka ugu yeeray in Ilaahay la caasiyo oo amarkiisa la diido wuxuu kamid yahay askarta Ibliis Imaam Ashura wuxuu yiri waa dadka nafafkooda waswaasiya korkooduna isku keen oo adeegso fardoolaydaada iyo ciidankaaga lugtaba kuna qayli baadiyoontooda kulana shirkow oo la wadaag maalkooda iyagoo si xaraana ku kasbanaya ayna ribadu ka mid tahay oo ah faa'iidada bangiyada si xaraana ku bixiyaan jinnigu waa u dhintaa jinnigu markuu cimrigiisu dhamaado waa u dhintaa oo waaba iyadoo Ibliis Ilaahay ka barayay inuusan dirin ilaa maalinta qiyaame sidoo Eebay noogu sheegay aayadda 36aad ee suurada Al-Hijr Rabbiyow iikaadi oo haydin ilaa maalinta qiyaame oo midkan xun wuxuu doonayaa inuusan dhimanba oo ilaa maalinta qiyaame uu noolaado kadib marka malaga dadka nafta ka qabtaba laftiisa la dilo oo inta suurada wan loo soo yeelay oo loo soo ogeysiyay la gowracay malakul maut waa malaga qabta arwaaxda oo idin kuwa jinniga iyo insigiba iyo bahaayinka xoolaha ah iyo makhluuqaadka oo idin ninba wuxuu Imaam Maalik weydiiyay xasharaadka ruuxdooda ma waxa qabta malakul maut markaasuu Imaam Maalik cabaar aamusnaa oo u fikiray kadibna wuxuu ku yiri naf ma leeyihiin wuxuu ninkii yiri haa way leeyihiin Imaam Maalik wuxuu markaas yiri hadaba malakul maut ayaa ruuxdooda qabanaya oo nafta ka qaadaya Ilaahay ayaana oofsada nafta markay dhimanayso degmada jinka jinnigu wuxuu degaa musqulaha iyo inta u dhaxaysa buuraha iyo badda oo Qaalib Badru al-Diini wuxuu boga 42aad ee axkaamta jinka kaga wariyay inuu Bilaal bin Harith yiri anigoo rasuulka Ilaahay sallallahu alayhi wasallam la socda safar ayaan meel ku degnay oo markaas musqul uu aaday markuu rasuulku musqul aadana waa uu fogaan jiray markaas waxaan u keenay sallallahu alayhi wasallam weel biyo ku jiraan markaas uu dhaqaaqay
markaasaan agtiisa ka maqlay muran rag murmaya iyo codad caraysan oo xoog leh aanan codadka dhawaaq badan horay u maqal markaasuu rasuulku sallallahu alayhi wasallam wuxuu yidhi waxaa dacwooday oo murmay jinniga muslimiinta iyo jinniga gaalada markaasi waxay weydiisteen inaan kala dejiyo markaasaan muslimiinta waxaan dejiyey tuulooyinka iyo buuraha gaaladana aan dejiyey dhulka u dhexeeya buuraha iyo badda kathiir oo wariyaalka xadiiskan ka mid ah ayaa waxa uu yidhi qof kastoo tuulooyinka iyo buuraha wax ku soo gaaraan waa u badbaadaa midkayse buuraha iyo badda dhexdooda wax ku gaaraan waxa uu badan yahay inuusan badbaadin anas wuxuu wariyey inuu rasuulku sallallahu alayhi wasallam yidhi meeshan waa la degan yahay waa musqushee markuu midkiin galaya ha idhaahdo bismillaah riwaayad kalena wuxuu ku daray albukhaari iyo almuslimba waxay wariyeen inuu rasuulku sallallahu alayhi wasallam intuusan musqusha gelin uu odhan jiray allaahuma innii acuudu bika min alkhubthi waalkhabaa'ith oo micnaheedu tahay ilaahayow adigan kaa magan galay shaydaanka ragga iyo shayaadiinta dhidigaba iyadoo ay musqusha degan yihiin shayaadiin sidaan annagu guryaheenoo kale u degannahay axaadiis kalena waxay sheegeen inuusan jinnigu albaabka musqusha iska furi karin oo uu sidaas guryaheena noogu soo gelin karin ee adigu ha ka furin oo yuusan sidaa gurigaaga kuula joogin albaabada musquluhu mar walba ha xirnaadaan albukhaari iyo muslimba waxay wariyeen inuu rasuulku sallallahu alayhi wasallam yidhi shaydaanku albaab xiran ma furi karo hana u ogolaan jinnigu inuu cawradaada arko markaad musqusha gashid oo iska xijaab shayaadiintu markay qoraxdu dhacdo ayay hawl ku soo baxaan maalin walba markay qoraxdu dhacdo oo habeenku duma ay ibliis iyo ubadkiisa u soo yaacaan inay dadka baadiyeeyaan oo fitneeyaan oyna waxa xun u qurxiyaan albukhaari iyo muslim waxay jaabir ibn cabdullaahi ka wariyeen inuu rasuulku sallallahu alayhi wasallam yidhi markuu habeenku soo galo ay habeen noqoto 5 waxyaalood yeel kow carruurtiina celiya oo guryihiina ku haya oo yayna dibadda u soo bixin iyadoo markaas shaydaanku soo faafayo oo soo howlgalayo laba albaabadu hoos ka soo xirta waana si ayna idinku soo gelin dugaag xoolo iyo tuugaba iyo shayaadiinba iyo cirfidyo muruxsan oo madax adag waxaadna xustaan ilaahay subxaanahu wa tacaala magaciisa saddex weelashiina biyaha iyo wax la cabo ku jiraan daboola waxaana laga daboolayaa shaydaanka magaca ilaahayna xusa oo bismillaahi dhaha afar weelasha cunadu inigu jirta daboola shan faynisyada damiya markaad seexanaysaan sababtuna riwaayad kale ayaa sheegaysa waana cabsi laga qabo inay dooli ama jiir iyo mukulaal bisad intay gediyaan dabkooda guriga iyo dadkaba ku jiraba gubo jinnigii qur-aanka dhegaysta ee islaamay nebi maxamed calayhi salaatu wasalaam isagoo tukanaya ayaa waxaa maqlay koox jinni ah isagoo qur-aanka akhrinaya siday noo warisay suurat alquluuxiya ama suurat aljinni waxaana xadiidka dhacdadaas noo wariyay albukhaari sida ku xusan fatxu albaari mujalladka 8aad boga 674 iyo xadiidka 4901 jinnigaas rasuulka sallallahu alayhi wasallam ugu yimid naqlo waxay ahaayeen jinniga degmada nasiibiin oo ah sidoo albaqwaabi sheegay tafsiirka aayadda 29aad ee suuratul ahqaaf uu ku yiri ashraafta iyo madaxda iyo laandheerta jinnigo idil marka samada xidigi iyo dab iyo danawiyo loogu soo celiyo ayuu ibliis wuxuu kala diray ciidamadiisa si ay warka arrinkaas ku soo helaan ergada ugu horeysay uu soo dirna waxay ka koobnayd kuwa nasiibiin degan kuwaas ay madaxda jinniga iyo hogaamiyaashooduba wuxuuna u diray gobolka Tihamaama oo ay Makka al-Mukarrama iyo Madiinaba ay ku yaalaan Yemen ay ka mid tahay halkaas inuu weegay barnaamijkeena imtixaanaha waxaan rajaynayaa inaad wax badan ka faa'iiday